السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جنرال كيني فانو. Hallo, leren Thierry verkeersborden, deel 2, gesloten verklaring C. Leren verkeersborden, barashada boorarka ayaynu ku jirnaa welito. Gesloten waxaan soo gaarnay verklaring caddeyntii xarafka A. horena waa u sheegay waxaan ku yidhi imtixaanaadka markii laga qaadayo magaca kale ku isticmaali doonaan laakiin markaad boorarka baranaysana categoriya alphabetical order sida iskugu xigana lagugu sheegi doono. casharkan wuxuu ka hadlayaa casharkii hore daba socdaa qeybtii labaad waay maadaama casharka hore badnaay ka faa'iideysi wacan hadduu ilaah yiraahdo. waxaa lagu dhahay vadbiteke did verkeersborden maxaa waaye macnihiisa muxuu yahay boorka lagu tusay hadda. boorkan casharka hore aan kusoo aragnay dabcan waxaan ugu talagalay inaan dib u qeexo. waa kan hore waxaa lagu magacaabaa bromfits iyo fits, ama haddaan si kale u dhigo snowfits bromfits farqi badan baa udhexeeya. waan ku celin, bromfits koofiyada la qaataa 45 ee xawaareeda ku socotaa, snowfitsna 25 ay ku socotaa koofiyad la-aan waay. wuxuu ka xiran yahay lagu dhahay gesloten for bromfits. wuxuu kaloo ka xiran yahay snowfits waxay usoo gashay baaskiilaha ayaa la keenay meeshuu baaskiil ku sawiran yahay. snowfits waa loo diiday. handicapta forteg waa gaari 45 ku socda. casharada danbaad ku arki doontaa insha allah waxa uu yahay handicapta forteg mid side motor, mid inverkin side motor wuxuu saaran yahay. marka casharada hore waxaan kusoo hadlay waxyaaluhu ka xiran yahay kulligood ayaan isku dayi doonaa casharo inaan ka sameyno. reuterbad maxaa la dhahaa, crivakan maxaa la dhahaa, promobile maxaa la dhahaa, waxyaalahaas si ardayda u fahmaan. jidkan wuu ka xiran yahay, mooto iyo baaskiil labadaba ma geli karaan. wuxuu kaloo ka xiran yahay sloten for foodkanger dadka lugeynayo. wareeg guduud haddaa aragto waa mamnuuc. horaan u sheegnay waa farbood, sida meelaha baabuurka in la dhigto ay mamnuuc tahay gaari lama dhigi kara camal. midkan wuxuu tilmaamayaa gesloten forteg waxaa kaa xiran samistelin baabuur motoorkiisa isagii markii lasoo geeyo gaariga iyo xamulku waday. mid inbekharaabi laadin xamulku qaaday langasign of headboard aan ka kheyfan. boorkan waxaa lagu tilmaamay 10 mitir haddii uu yahay xamulka qaadayso. sidaa la socoto baabuurta dherarkooda waxay ku cabiraan 6 mitir waay sida imtixaanaadka lagu sheego. baabuurta ugu yaryaraan sheega, baabuurta waaweyna waa 12 mitir. markii anhanga waaqinka lagu daro waa 18 isku noqonay. sidaa daraaddeed waxaan leenahay 10 mitir isagii xamulku jiidaayo waa inuusan laanga ka badan. boorkaas meesha ku yaalo haddii xamulkaa wada 11 yahay waxaan way ma mari kartid. midkan ku xiga wuxuu tilmaamayaa haddaa si fiican u fiirisa geesahan breta geeskaas waa ballaco 2.3 mitir. gesloten wuxuu ka xiran yahay mid inbekhareb laadin xamulka aada saarsan tahay. bred overheadboard aanqay bred waxaa la dhaha ballac. labada gacmood markaa fadhisa haddaa taagto ballac kaasaa la dhaha, ama ballaar ayay dadka u yaqaanaan. dadka qaar ballaar ay iska yihaahdaan. ballac cayna waa la geliyaa, dadka qaarna ballaar ay isticmaalaan. labada gacmood markaad taagto baabuur ballaciisa xamulku wado waa ka xiray. sida asalka baabuurta wadooyinka waa loo cabiray. wadada waxaa la yidhi hadduu farhaardu beekhiya waa 2.5. marka hadduu xamuul qaado xamuulkii wuxuu taabanaya baabuurkii kale kaa hor imaanaya. sidaa daraaddeed dhibaato ayuu geysana loo diid. gesloten wuxuu ka xiran yahay gaari forteg mid inbekharaabi laadinkiisa see obdaboora kheyf. kan waa hooqtu waa kor. armaajo joogeeda haddaad xamuul qaadayso oo jidkan uu saas ku sawiran yahay 3 mitir
baabuurkaaga hooqt ma mari karo meeshaas xasuusno. Holland waa la socotaa ilaa 4 la ogol yahay laakiin xaafadaha qaar oo ku yaala. Gesloten wuxuu ka xiran yahay Farven as last hooqdan aan boordaqan. Wuxuu ka xiran yahay gaarigaas oo ah var as last. Gaarigaas gawaarida culeysta leh baabuurta culeysta badan ay luma as last asalka waxa la dhahaa birtan dheer geeska isku xirta culeyska cadaadinaya halkan kaasa lagu magacaabaa as last. Marka baabuurta culeyska badan leh oo lagu tilmaamay 4.8 haduu yahay oo tii lagu qoray tii 100 loo soo gaabiyay dabcan waa ton way hadii 100 lagu rufto 4800 haduu yahay gaari halkaas wixii ka bilowdo ma mari karo wixii ka badan ma mari karo wixii ka yar mari karo. Buundooyinka badan aad loo ilaaliyaa baabuurta culus inay marto lama ogola hadii kala buundada way dumaysaa waa lagu dhajiyaa boorkaas. Gesloten wuxuu ka xiran yahay Samstelling gaariga van Voortweg Varto Talmas oo gaariga culeyskiisa markii la isku daro ayuu tilmaamay isagana 5.4 oo 5400 baabuurta culeyskooda yahay iyagana halkaas ma mari karaan. Kii hore wuxuu ahay buundada iyo culeyska meesha gawaarida laga hadlay kan laakiin gaariga laga hadlay. Gesloten van Voortweg wuxuu ka xiran yahay baabuurta mid baalig stof gawaarida sunta wada. Gawaarida sunta xambaarsan inay halkan soo maraan lama ogolo wada gooni ay leeyihiin. Gesloten wuxuu ka xiran yahay vrachtauto die niet voldoende eisen shuruudan soo buuxin genoomta in artikel 86d ayaa lagu magacaabaa waa artikelkii dowladda u sameysay sida galaadeed milieu zoonaha waxa weeye hawada nadaafadeeda in lagu ilaalo ka soo qaad gaari vrachtauto waxa weeye qashin qaaday kor uu ka banaan yahay dabaysha qaadayso xaafadu wasaqay gaari vrachtauto ama baabuur kor ka fiidan xamuul qaaday ama baabuur yar ba ha noqdo xaajiid yar oo adiga gadaal maaragtay alaab saaranayso ama four-wheel drive ha noqoto marka shamiindadii aad saartay iyo nuuradii iyo way biibaysaa dabaysha qaadaysa xaafadaha galaysa marka hawada dhaawacaysa milyooga kaas Allah in la ilaaliyo waxa kamid ah milyooga lagu ilaaliyaa baabuurta dieselka oo kale badanaa hawada wasaqaysa magaalooyinka waaweyn loo magan wax naafta la diesel indi waa dhamaaday waxa dhamaaday indi Gesloten verklaring cadeyntii ka xirneeda dhamaaday macnaha waa la ogoliyo vrachtauto gawaarida aan shuruudda soo buuxin system voldoende eisen waxa la shuruudda qofkana soo buuxin macnaha wax la mid tahay system requirement-ga camal in article 86d gaarigan wuxuu tilmaamayaa kor sida kaaga muuqataba inuu kor ka xiran yahay waqti 4 mitir waa u jeedaa buundada saa u yar tahay waxa suuragal ah inuu buundada jabsado. Tusaalaha labaad jidkan waa soo maray Gesloten for alle baabuurta dhan ka xiran yahay marka gaarigan soo u maray halka gaarigaas uu ka xiran yahay mooto ka xiran yahay wixii culays saaran inuu ka xiran sida daraadeed inuu jidkaas maro asalka ma casharkaas waa casharkeennii barashada boorarka oo lagu magacaabay verklaring ama Gesloten verklaring si casharkan inta cashar la mid ka gaarayna casharada badan naga wiigi ayaa soo gelin jirnay hal cashar marka inta badan maalin kasta ma soo gelina dadka waxarnaa markina ku baraarujina janalka waxa uu talagalnay si tartiib ah marka casharadan hadda cashar kasta waxa isku day doonaa imtixaanaadkiisii casharkan wixii imtixaanaad la socday inaan soo gelino mustaqbalka dhow kuwii ka horeeyay oo isneel haydka imtixaanaadkoodana iyaga inaan keeno sidii nalalka u keenay marka kullay la socdo casharkan soo gelina ayaan soo gelin doonaa imtixaankiisa casharka kale di uma gudbi doono ilaa imtixaanaadka aan keeno marka ilaahay waxaan ka rajeynaa aniga idinkana inuu fahmada idin furo anagana allahumma rabbi zidna cilma sallallahu ala sayyidina fadlan subscribe channelkeena ama gabaleelka riix si aad macluumaadka